كل وناكسنا أصحابنا نقول قالي أسيد هذه دي شقديبة وحنفلقين دونا معلومة عيارها مركي دعيان يوليبا سيدو كانوا حاسمين دون تان سادالين وحاجرب كيف فدي فلقي وين أو تقانان أو متقاناي عنك إنه فلقي عيارها سادالية حسين يبا معلومة عن عيارها لفيلة إنه دعان يوليبا عيارها نقص فودله دعي دونا نورع horta saaxiibkii waan ku dhawaay page-ka dhalinyarta asxaabta dhammaan inta ku xiran page dowladda news media inta ka salaamaya salaan kadib waxaan leeyahay horta Premier League meesha ugu fiicneed oo ugu xamaasad badneed oo maraya ayaantan teeda kale waxaa foodis ku hay bardhow kooxda Liverpool iyo kooxda Arsenal oo sanadkii tagay ku tartamay horyaalka Premier League asaasna ay ku qaaday kooxda Liverpool sanadkan waxa u maleysaa marka mar labaad inay Arsenal macnaheedu leeyahay geedkan way qaadi kartaa Liverpool way qaadi kartaa dood badan kadib ayaga isku aadan kulanka isku bixi doonaan oo usbuuca adu Ilaahayna gaarsiyo marka kooxaha kaalinta koowaad kaalinta labaad kaalinta saddexaad kaalinta afraad kaalinta shanaad ku jiro ilaa kooxaha ilaa 20 ku jiro kulay Premier League hadda bilaabmay kooxda maanta 20 ku jirta ku soo gali karta maadaama hadda lagu qiimeyn karin ay laba koox weyn oo macnaha meesha u tartamayeen ay isku baxayaan koox walbana ay wadata ciyaareedii iyo dhibcii natiijadeed ay wadata min 6 dhibcood ay wataan marka ani saadaal ahaanteed ani waxaan qabaa kulankaas maadaama Arsenal ay lumiyeen Saka camal ciyaartoy weyn waay oo kulan big game player oo injury ugu maqan Liverpoolna ay wax ka maqneen maadaama gurigeed loogu baxay waxa isleeyahay Arsenal gurigaas waxay ku soo heli kartaa dhibic baraajo ama win Arsenal lose ay galaysaa ma dhigi karo waayo Arsenal oo cadareynaysa ayada naftarkeed ma liidato inkastoo Liverpool game-kii ugu dambeeyay farci dil ay ku baxsatay inkastoo ay saddex dhibcood ay muhiim tahay ciyaar hadda ay waxba tareenin kooxaha arkaysa ciyaar fiican hal iyo eber loogu soo badinayo aan soo aragnay kulankii Man United iyo Arsenal kama macnaha ma filnayn anaga hal eber ku dhamaanay sidoo kale ciyaaro kale oo kuwaas la mid ah sida Arsenal iyo Liverpool ma jiraan oo kale oo aad ogtahay isbuucan socday dhacaya way jiraan ciyaaro badan oo jira tiimkii yar xitaa naftirkood lama dhaliisan kara sanadkan 3 points lagu helo way adag tahay marka waxa isku baxay Fulham iyo Chelsea maadaama Chelsea gurigeed ay tahay Fulham inay ku yar dhibtaa laga yaabaa teeda kaleeta Spurs camal Tottenham waxay u bixaysaa Bournemouth gurigeedana ku ciyaaraysaa waa kulan adag maxaa kaleeto Man City oo kulanka hore la garaacay Brighton gurigeeda soo booqanaysaa inkastoo City garoonkaas marmarkoo barbar la geliyo oo ay ku dhiban tahay sanadka hadda xitaa barbar loogu dhigay waana macnaha koox maanta u baahan inay 3 point ka qaadato waxaa kale oo ciyaaraysa sida oo qaad kooxda Man United ahead oo darad laga badiyay maadaama gurigeeda ahead ay ku azuumaysa koox kale oo naadiga Zerbi ah marka waxaan leeyahay ayada naftirkeeda Burnley la ciyaaraysa way garaaci kartaa isla ka soo kaban doonta dhibcahaas marka Premier League hadda uu bilowday 5 dhibic ilaa 6 dhibic ilaa 1 dhibic oo isku mid marka waxa leeyahay guul wacan leeyahay taageerayaasha Man United kulli ilaa Liverpool dhamaan inta ka salaamaya dadka wada taageero wixii community wixii ciyaar falanqeyn ah waa inoo isbuuc dambe insha Allah iyo inoo saadaashi dambe waa inoo amal marinidii wixii aan beeshka ugu soo targalnay ku guuleystayaasha iyo dadka nagu xiran dhamaan asxaabta waxaan leeyahay welcome wixii falanqeyn ah kulli xaqiin wixii community ah xaqiin waan soo qaadan doonaa dad khabiir badan oo ku xiran beeshka way jiraan sidoo kale waad ka soo hadli kartiin saadaash waa nii furan tahay anaga saadaaliyaha ugu horeeyay beeshka follow ku ah oo like iyo wax walba saar comment ka soo bixiyo abaalmarintiisa sayta ugu geenina xitaa hana qata inaan ugu tuurno akoonkiisa hana qata iyo bir wax walba hana qata inaan la xiriirna oo soo dhigna page-ka aan ku baalkeena sidoo kale comment-yadan soo qaadan doonaa aan soo saari doonaa halkan mataqaanaa kuwa saadaash iyo waxyaabaha la midka ah inaan comment-yada aad adinka aad qorteen inaan idin soo gudbin doon dhahna comment-gaas sayta saas u soo qoray ninkaas sayta waxa way abaalmarintaas u leeyahay dhahno oo maanta idan soo bandhigna inuu yeeli doona insha Allah yeeli doona hore ka soo bandhigayna isla meel walba iyo mar walba oo helkaaga ka dhiga Dolaado News Media